koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa Kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhagayste dadku waa Kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan waryaadaheen war ma haysaane maanta waa maalintii cuntada adduunka maalmaha kale wax lama cuno miyaa hal maalin miyaa adduunka wax laga cunaa warnimo been bandida maanta aniga igu baahi badan mana soo qadayna xagee maalinta cuntada adduunka ku taa war kaar qoorta gashay aad qada weys aryaadaha maalinta cuntada adduunka aad sheegaysan cunta sagoo saaray rabtaa aawo maalinka goosaarta adduunka ma sayaabisaa la dhudhunxaa war koosarada aad sheegaysaa ma timirta aryaa koosar gabaray ahaa jirtay xaad ka wadaa waxaas war xuska maalinta cuntada adduunka ra'iisul wasaare khayr ayaa ka qayb galay waxa uu yiri wadamada ay raashin yaridu ka jirto waa in ay Soomaaliya waxay cunaan u soo doontaan ma loo karaama sawaa ceeriin hadda fadhiga ka kaca hadii ra'iisul wasaaruhu dad casuumay beerihiina waa lunguduudayaan baqaat warnimayo anigu dhaliilaha badan oo runta waxaan ka jeclahay waxqabadka badan oo beenta marka ra'iisul wasaaruhu waa mahadsan yahay wadani dhab ah ayaa tahay nabad iyo nololna way ku baahan tahay dhudhun la maala waa kan dhalin shaqaysa waa tan dhaxal la reeba waa kan war maxaadona wada aawahe ubahi aan abuurnay muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaagay aryaadaha codkiisa waxaan ku xusuusnay dameer saaka canjeero salaad ka cuna dameerku miyuu laxooxda cunaa alla xeexa keena canjeeraanba ku leeyahay dhigtow dameerkuuga dhigaasoo canjeeraday fadee how yiri ninkii lahayaa inya soo orday oo yiri day dameerka waxau kaa cuna anaa kaa fadsiihaaye oo maanta ninkii qosolka xumaa hadduu maqan yahay ma maxkamad buu dameer la fuulay canjeero ka cunay maanta hadduu maxkamad saaran yahay qosolkiisii xumaayo kiik ahaa waa laga reystaa umalayna nimayo aan waxaan maqli jiray bulacaa baxal ku soo boori balankaasaan badan waaye bulacaa baxal ku soo boori balankaasaan badan waaye markaan waxaan rabaa inaa ii sheegtiin dameer aan maxkamad nalkonaya cabatul cumrigeyn ba maqline inaa ii sheegtiina niirama bulacaad ku heesaysa asaa dameer eedayhe ninkou canjeerada ka cunaya maxkamad la tiigsaday adeer dameeraha waa kii abwaan siciid xarawo bilada siiyey waa kii yidhi gurayara dameerkaygow gaadiidka dhaqankaygow jac ninka maanta canjeero u qabsaday dameer alla kuma siiyo allow salaad allow alle war madaxweynaha Soomaaliya waa kii marka astaan amadeed ku soo bandhigay banoonigana waa kii ku soo ciyaaray meeqa goolow dhalshahe war hal taliyo tuuneer ka saare tunka balaayo ku jabisay taliyo xil laga qaaday miyaa tuuneera war warkay dhex gelinay dhageysta yariisa wuxuu soo qoray gudoomiyaha gobolka laacibka ahna kabtanka nabad iyo nolol waa madaxweyne farmaajo war waa kabtan xigeenka nabad iyo nolol waxa joohar ka qudbeeyay waxa uu yiri jawharay ma nabadba jinnadii adduunkaay ma nabadba jawhara luulay ma nabadba waan idin soo jirmaadnay ma nabadba jacayl baan idin qabnaa ma nabadba khayr wuxuu si raacay marka hadaad maqli jirteen jawhar tareen baa mari jiray oo waa magaaladii ilbaxnimada waxa kale oo la dhihi jiray jawhar ama jidda la yaabi maayo cadaaduusan tagin war adeero hargeysa ahayd meeshii loo soo shaqo tagi jiray ma hadda ka hor wuxuu yiri jinna jidkeer kuma joogo ayana soo jiri mayso marka hadda ra'iisul wasaaruhu warshada isnay biyaasay sokorta ma furay alloo shaqo tago jawhar he ma xume war madaxweyne xasan sheekh ahna kabtanka xisbiga nabad iyo horumar wuxuu yiri waa in la helaa dastuur kala haga dawladda iyo mucaaradka waa kabtankas aqalka sare samatar cabdi xaashi ninka yiri labada gole baarlamaanku hal xeer hoosaada yeelahayaan yaa kabtanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa cadaadaya dhuusa maraab kala jooga hal xeer hoosaad u baahan wa Kalamaan iyo kulmiye xeer ma leeyihiin war muuse bixi faysal calawraaw xeer hoosaad ma leeyihiin war ma haysaane maanta muqdisho waxaa lagu qabtay bandhiga tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta aryaadaha isgaarsiin waa gardhay ignoolaji anaxay ahayd waryaambada soo sameeyay loo yiri beertana fala warka anaga dhaxgelinine ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi ayaa meesha waxa uu ka yiraahday haddii aadan lahayn ciwaan email
facebook twitter instagram whatsapp ama aadan akhrinin website ogow waxba ma qortid waxna ma akhrisid aryaa muga akhrin kaligeer miyaa aqoona war laa yaqra walaa yaqtuba lakooda ra'iisul wasaare ku-xigeenka waa aragnaa caawa madaxweyne ku-xigeenku war duni ceebti ka suushiyo qof cambaari ku taal ayaad caaw dhigateene xaggee ceebtii la geey war tuur yare waxba kale ma oge aan aniga din warmo Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu magacaabay golihiisa wasiirada 10 waa dumar 10 waa rag ay idin bishaareeyay wasiirka maaliyadda waa Soomaali gaashaandhigana waa gabar la yiraahdo Caaisha war ninka Soomaalina maaliyad u dhiibtay gabarna wasiir gaashaandhig ka dhigtay waxbuu isku qaldaa leeyahay war madaxweyne xaaf wuxuu yiri dhagdheer iyo dhagay iyo qoorqoor iyo qaar kale oo badan baa galmudug baabah ka dhigay aryaa lugay iyo ilay iyo sanay nama u dhiman yihiin waxaa yaabe lama gooda intaasoo shanoo dagaal ay ku jireen waa umaleehay lugay iyo sanay iyo faluune iyo ninqahayaan waa sugay adeer bulla duule ayaa u dambeeya adigu adiga xuquuq leh masan baxaraarkaad laada warnimiya waxaan dhiilaa Soomaaliland dadkiina dhinac ka raaca war adeer ordoo naga tag habaar kugu dhacay iyana kaaga siinay waliya wiilka dhaaf wariya ma xoog sheegasha waxa alla dil cunug hado edab daray alla iska dhac alla iska cisaab ay ku taaban jilib dhacaan weyn hal laga raree